1977 Soomaaliya waxa ay dagaal la gashay dalka Itoobiya dagaalkaas oo ujeedadiisu ahayd in lagu xoreeyo dadka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya degan oo la magac baxay Soomaali galbeed dadka qaarkiina ay u yaqaaniin Ogaadeniya Soomaaliya dagaalkaasi waa ay ku jabtay kadib markii Itoobiya ay u soo gurmadeen dalka midowga Soviet iyo dalka Cuba siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliyana way isbedeshay iyadoo taliska Soomaaliya uu u janjeersaday dhanka reer galbeedka khasaarihii iyo jabkii ka soo gaaray dagaalkaasi waxa uu tiiraanyo ku dhaliyay dadka Soomaaliyeed rag ciidamada ka tirsanaya inqilaab isku da'ay laakiinse inqilaabkaasi waa uu fashilmay gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay geedka habo uga qaaratada gumaysigu ku dhunta dalabtada rumaanta geedka gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay geedka habo uga qaaratada dagaalkii 77 oo dhex maray Mengistu iyo Maxamed Siyaad Barre ayuu inta noo yeeray khibrad baad leedihiin tababar dheer baad leedihiin aqoon badan oo ciidan baad leedihiin ariga wuxuu yiri meeshaad 64 ka dagaalantay oo ah doolow jahadiisa halkaas waa front baad ciidanka xoogga dalka iyo wixii bariis iyo lagu daro iyo jabhadda Soomaali Abow أنا قرر الصومالي أبو مركا والله يا بران حياة يضمن له الصومالي أبو بعد ما لاحظتها أيضا كان مركا الله يسكت الدراسة صدق كون يبوها سايس وقت دقيقة النبي لا تقول بيسا هالكاسور من بوابي تلياني قبصة إثيوبيا ولسه يورو ونوشة وحيري إنت قال تلياني ومدحنا فرس نوفولي لأنه أنا وروح لغينا أديس أبابا وعلى مقديش إلى أديس أبابا ولكن ودده ويقي ونقول كلفه إثيوبيا مركي دور ونافتان واحد جاي سابور إيو وريال إيو دول كايمة وربنا ودده رجعنا بقى مرة مركز نقل قوتان ودود بيسان مل أواصل يرهدو ليك اللي هو سيم رئيسان يا سيم رئيسا عيدا كاو أدسوات كوفر كسوق رئيسا أدسوات كوفر كريمانيسا كريمانيسا ومركز قرشها ويكوتشرتي بيلو جيبا إن أدسوات حيتا لقارو أدر ويكوتشرتي أنا وقعنا وحكومة قرشها وحكومة هاي أنا وفي أدبر فديه ومركا عيدن كشقيني عيدن كهر يدير الدوي ورية كاسنا هل كاسو مركو ظهر يدير الدوي قصيد سوق بيا وبيه هو أشوف كسوق بيا وهذا السوين وانا يسال ميل سوق مركا مقعير يقين اللواقي ومراي ومجالا أدين يقولها لي حتى هلكا خاير دحقو sida dad fara badan ay tilmaamaan ama taariikhyahanadu ay sheegaan adigu dabcan xog hoose haysa waxa dagaalka loo galay la xoreeyo wixii lagu tilmaamayay Soomaali galbeed ama gobolka Soomaalida Itoobiya marka qorshuhu ma ahayn badleeday in halka lagu koobnaaday ilaa Addis Ababa absolutely ma ana la yiri Addis Ababa koonfur ka soo weer
ciidanka har iyo dirdhaw ka soo degayaana waxay isugu imanaysaan wadada ka timaada ee koonfur oo marka dambe mooyaale iyo Kenya iyo aada iyo wadada har iyo dirdhaw ka timaado oo waxay isugu imanayaan magaalo aan weynayn la yiraahdo Mocho oo aad sababa 70 kilomitir ka socoysa inta wada jirahan baa la rabay inaanu qad sabaqa anu waxaan ku iri masuura galba ciidankeena iyo awoodeena iyo marka la eego hadalna waxay noqotaan haabi oo waxaan iri dhulku seeyay ninka taliyaha ay dhulka iyo jawiga iyo dadka dhulka degan iyo waxaas oo dhan uu ku tushaa ila waa dhibaatooyin ka hor iman kara markuu dagaalka galay wuxuu yiri dhulka iska dhaafay saayay waayahay haddii ciidanka hardhiya girdhiba soo degi waaya see la yeelaya markaas laga tashanaya yani waxaan arki jiray dagaal haddii la gelayo in horta political objective ama ula jeedo in stage ku leeyahay haddii yiri Soomaali galbeed baa la qabanaya marka ula jeedadii waa taa hayeeshee strategically inay suuragal tahay yani waa ila cusray midda kale dhul weyn oo runtii geographically ku adag ciidankii soo gala bay leedahay Ethiopia waxay leedahay manpower badan ama shacab badan haddii dhulkii wadankii hadda la dhirirayso wadan waa la tixgeliyaa wadankaas suu yahay dadkiisu inuu yar yahay inuu badan yahay inuu ila manpowerka hadhowto ciidamada laga dhigaye iyo dhulku inuu baaxad weyn yahay oo balaaran yahay in kale wali labada markii laga badan yahay haddii strategically inay kugu qalactaa laga yaabo weliba haddaadan dagaalka yani bilowga aadan bisha ugu horeysa iyo bisha ku xigtay aadan adkaan oo aadan meeshii lagu cayimay inaad qabatid qabsan dagaalku dheeraanaya markuu dheeraadana ciidankoodu dhammaan mayo intaa wax kumayal 40 konton iyo maaqa 60 milyan bay ahaayeen markaa Itoobiya inaguna 10 milyan oo qof kulligan marka la isku daro kulli jamhuuriyadda Soomaaliya oo saasa filayay hada waa lagu biyo Kenya dii dagaalku dheeraado waxa kaloo yani suuragal ahay dawlado kale oo Itoobiya u riinaya inay dagaalka soo galaan speed baa marka loo baahnaa Cabdisalaam speed in guula lagu gaaro oo shakti loo diray laakiin bilowgii taas waa dhacday Soomaaliya markii dagaalka la galay sidaynu la wada soconno Soomaaliya ciidanka ay markay haysatay waa ku xoog weynaatay Itoobiya waayo Soomaaliya equipment-kii haysatay iyo tababarka lahayd aad bay u xoog weynay saraakiil wada tababaran oo staff college soo wada baxay baa ciidamada hogaaminayay furintayda ana madax ka ah furintay baari qaar kala hogaaminayay harar iyo dirir rabe ayaya marka harar iyo dirir rabe ku dhawaayeen wasiirkii gaashaandhig oo taliyay ciidanka oo Cali Samantar ah oo aanu Iraaqeed oo sarkolsmith sahay baa runtii ay hoos imanayeen hogaaminayay waxaa marka loo baahnaa in markii qorshaha la sameeyay lagu talagalo factories kaas oo dhan haddana waxa uu qaatay in lagu talagalay hayeeshee markii dambe oo ciidankii harar iyo dirir ka soo digi lahaa soo socdaan uu naga ila wanaagay laakiin awooda inta ka badan sii socon karo haddii aan ciidanka la xoojin ma haysan ciidanku xooga artillery la socday inta kale infantry waa tanks iyo ABCs iyo dayuurada iyo magaciisi iyo maartay dagaalka kula jiro oo taageeraya ma jirin maalin qura dayuurada inuu soo dirnaa ciidanka
شهرية دير مركز سعون وعي أروح عن الدسي ورادي عيلن كانوا وحو مضح له قراعي دفاع وسمري كريم خسارة بدن بانكو قاري وحال عصبي مركان أنا مقدشته مقدشة مركان تقال يساوون بأي قابلية محمد سياد برأي قابلية لا على سلام تروح نشرا كره يا وقوي وشرا وحان سيسا ما يستي قرشة استراتيجيكال ومعقول يقول شمر كات سوين يصاب عيان تاينا واحد كنت لقلي ساعة فكترس بدن وحاصلا أنا رنتي تحقلي أيام قرشي يسميه قرشونا دي مرنا وأخرال وحبوط يفرد دي منيس مرنا ما بكال دوغين يا ور بحلج ها waxay iman diyaarsaday waqti man kartaa baa la yiri waa tegay galabaan soo galay magaalada tayaarad baa dol oo igu soo diray oo boliisku lahaa laakiin nagale ilaa dowlow gaari waan ku soo maray madaxweynihii oo la fadhiya nin sarkaale yaan soo galay uqun soo fariiso matin haa soo fariiso ninka markaa la fadhiyay wuxuu ahaa maxamed nuur dalaal oo furuntada diri dhama markii hore madax ka ahaayoo laga soo bedelay maxamed nuur dalaal marhaash yaana wax ku beegoodaan jira waase iga dhalan yaraa iyo gaabna ayaa garanayay ma garanaysaa anigu markaas waxaan idhi anigu waxaanu imi guddoomiye kusoo jeediyaa haa buu yidhi miis baa meesha yiri wuxuu hoos fadhiyaa xafiiskii uu ku shaqayn jiray seexana jiray oo eerboorkii muqdisho ku yeela geed ku hor yaal oo weyn baa miis yari u yaalo waxaa ugu rakiban jalaskii halkii may qaylinayay markii uu soo geliyay geedkaas garaaca wuxuu yiri waad yeeli kartaa bilow ma sheegin waxaan wata markii hore waxay yihiin explanation kale horta riboodkii baan dusha u dulmaray oo akhriyay qaybihiisii muhiimka ah deetana maabkii waan intaan kala bixiyey oo miiska saaray baan iyadana ka hadlay wuxuuna way isleeyihiin riboodka iyo maabku wayna isku yimaadaan waxaan ku yiri guddoomiye amarka aadna siisay anigu waa garanaya adigoo naga ilaan jooga ciidankii hare iyo dilib dhammaan soo socon waayo garanayo difaac adag miyaa ka hor yimid ma wax kalaa dhacay difaac ay mari kara baa madaxa loogu garaacayaa ciidankiina khasaaro badan baa gaaray taasina waxay keenaysaa ciidankii awooddiisiina inay yaraato muddaduna dheeraato muddo dheerna haddaynu dagaalkan ku jiro aakhirka waa jabay waxaan kaa codsanayaa qorshihii strategicalka ah ee aada dagaalka ciidamada ugu dirtay in wax laga bedelaa maxaa la yeelaa waxaan ku iri ciidamadan meesha aada madaxa ugu garaacaysaan waxaan kaa codsanaya ka daayo waayo mar haddayn guul dhalinayno hore u soconayno magaalooyinkii loo xilsaaray inay qabtaan ee ahaa harar iyo dirirebe haddaanay gaarayn oo muddo dheer ay ku qaadanayso inta markii aad weerar gelisaanba lasoo jibinayo khasaaro badan dhacayo ciidanku halkaas waana runtii ku itaalyaraynayaa oo khasaaro badan baa gaaraya waktiguna waa dheeraanayaa waxaan u muuqata ciidanku halkaa inuusan mari karayn hadda haddaan la bedelin qorshaha maxaa yeelanahay buu yiri waxaan ku talinayaaba inay meeshaan ciidanka madax loogu garaacay hadduu mari waaye ciidanka difaaca la geliyo ciidan badan oo ka mid a oo culus wata hala soo wareejo koonfur ha loo soo wareejo oo aniga hala ii keena annagu markaas horey wuu socon karaa
markii taangis iyo ABC iyo dayuurado iyo magaciis iyo waxaas ay taageerayaan